annaga nala xisaabtamaan waa dhalinyarada sidaas daraaddeed waxaan aad idinkaga rajaynaynaa in fursaddaas horena uga faa'iidaysteen haddana ka faa'iidaysan doontaan maamulkana aad ogaataan inuu mar walba diyaar u yahay si allaale sidii fursadahaas loo badin lahaa loo gaarsiin lahaa dhammaan dhalinyarada gobolka qof walba inuu noqdo qof shaqeeya qof waxbarta iyo qof maaragtay ganacsi ah oo aan la helin qof baagamuunda ah taas waa annaga ta aan rabno taasna waxay ku imaan kartaa dhammaan bulshada inay iskaashato ha noqoto ganacsatada ha noqoto dadka qurbo joogta ah ha noqoto dadka ilaahay wax siiyey dhammaan waxaa la rabaa in shaqo abuurka la sameynayo ka qayb qaataan annaga waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii u taagan dhalinyarada sidii shaqo abuurna loogu sameyn lahaa mustaqbalna loogu gobol xaari lahaa taasoo annagana na dhiirigelinaysa haddana suurtagelisay in muddo kordhintan maaragtay ay nala fududeeyaan oo la-aantood madaxda qaranka aysan suurtagal ahayn madax qaran oo dhalinyaro ah fursad aad horumar iyo tallaabada qaadaysaan ama maamul gobol ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqoto diyaar idinla tahay inay idinku dhiirigeliyaan idinlana horumariyaan marka waxaan rabnaa inaan ka wada faa'iidaysano gudoomiye tuulix oo annaga nagu dhalinyarana isaga ayaa qaybta dhalinyarada mas-uulka ah ee gobolka marka taasna waxay idin dareensiinaysaa qofka dhalinyaradu inuu fursad leeyahay beri waxaan rabnaa qofka halkan annaga aan joogno dadkii joogi lahaa waa idinka dadkii beri madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiiro noqon lahaa waa idinka qof walbana waxay ku xiran tahay sida uu u shaqeeyo sida uu u shaqeeyo waxaan ka wadaa shaqo markii lagu diro haddaad sugayso gurigaaga aad joogto markii shaqo lagu diro keliya aad tagaysana qof horumar gaaraya ma noqonayso laakiin haddaad tahay qof dhiiran oo ah maxaan dalka u qaban karaa isweydiiya halkeen maaragtay ka hagaajin karaa maxaan qaban karaa haddaad samaysan wax badan baad qaban kartaa kow naftaada inaad wax u qabato ood wax u barato ha noqoto cilmiga diinta ha noqoto cilmiga kale dhammaan waxay idin saacidaysaa inaad beritoole horumar gaartaan mar kale waxaan idin leenahay maamulka gobolka banaadir diyaar buu idin yahay idinkana waxaan idinka codsanaynaa arrimaha nabadeynta iyo caasimadan siday nadiif u noqon lahayd amni u noqon lahayd inaad kaalin weyn ka qaadataan nagala shaqaysaan waxaan ku faraxsannahay xalay degmada wadajir laba qof oo bombo tuurtay in shacabkii ay ka daba carareen ay soo qabteen shacabkaas ka daba cararay naftooda u huray waxay ahayn dhalinyaro oo runtii keentay in labadii qofba ay gacantii hay-adaha amniga hadda ku jiraan taasna waxayna tusaysaa haddii xaafad walba iyo waax walba ilaan walba iyo tabeelab walba dadka ka shaqaynaya yihiin dad iska warqaba dad u istaaga inay magaaladoodii nabadeynteeda iyo horumarkeeda ka shaqeeyaan aad baan ugu kalsoonnahay aad baan rajada kaga qabnaa aad baan u rabnaa inaad guulaysataan waxaan idiin rajaynaynaa guul waxaan idinka codsanaynaa inaad dadaalkiina laba jibaartaan isla markaana magaaladu ay dareento in dhalinyaro firfircoon ay hawsha hayaan sidoo kale waxaa nagu soo foolle bishii barakaysaneed ramadaan waxaan iclaaminay barnaamijka taakulo oo aan rabno degmooyinka iyo xaafadaha iyo dhammaan bulshadu inay kaalin ka qaataan 500 kun oo barakacyaal ayaa magaaladii degan barakacyaashaas cidda ay wax ka sugayaan waa annaga cidda la rabo in loo gurmado ama wax lala qabtana waa iyaga dadkeena dadka ugu nugulna dadka u istaagi lahaa waa annaga taas marka waxaan rabaa inaad kala shaqaysaan maamulada degmooyinka iyo waaxyahaba sidii gurmadkaas u noqon lahaa mid miro dhala ramadaankii maalmaha naga xiga loo helo dadkaas wixii taakuleyna oo loo heli karo shaqaalaha gobolkana waxay sameeyeen inay lacagahooda iska jaraan taakuladaas uga qayb qaataan marka idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad bulshadii dhex gashaan wacyigelinta ka qayb qaadataan nabadeyntaas iyo sidii dadkaas walaalaheena kaalmo loogu heli lahaana aan iska garabsano
intaas ka sokow waxaa waddanku u socdaa dimuqraadiyeyn 2020 doorasho hal cod iyo hal qof ah taasna si ay u miro dhasho annaga maamulka gobolka waxaan ku tashanay in gobolka banaadir uu noqdo gobolka ugu horeeya ee doorashooyinkaas halka cod iyo halka qof ka dhacayaan lagana hirgelin karo inuu noqdo gobolka banaadir taasna waxay tahay annaga ku tashanayno dhallinyaradiina in muxuu kaalin ka qaadataan bulshadii abaabushaan idinka aad noqotaan dad ka shaqeynaya sidii dimuqraadiyaddaas u hirgeli lahayd si ay u hirgashana waa mid dan u ah qof walba oo Soomaaliyeed siyaasiyiintan hadda joogta waxaa la rabaa shacabka sooma dooran shacabka oo hal qof iyo hal codan waxay keenaysaa in shacabku doortaan cidda ayaga ay raalli ka yihiin si taas u hirgashana waxaa laydinka rabaa inaad kaalintiina ugu muhiimsan ka qaadataan waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye tuulax oo runtii waaxda siyaasadda iyo dimuqraadiyeynta hirgeliyey qorshe howleed u sameeyey dhowaanna aan bilownay tababar oo degmooyinka iyo maamulka iyo la siinayo si barnaamijyadaas loo hirgeliyo oo degmo walba ay usoo doortaan golahooda deegaanka arrimahaas dimuqraadiyeyntan waxaan idinka rabnaa inaad kaalin fiican ka qaadataan sidaas daraaddeed waxaan idin rajaynayaa guul iyo ramadaan wanaagsan dhammaantiinna ogaada waa idinku tashanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu